40 كالنووي جرداني رحمه الله شرحي سوحه كشة قصة عجيبة حديث كاس رابعة رضي الله عنها بين يدو تكنيسة أيو ننتوق أقل كي يقول صوت عيبا ليلي مركاسو أركي هويني يسكت تكنيسة أو أن إن يرنا عن عبساني ما عبسانيسو وين مقاشا شنقدع إنو توق أقل كي صوت عيبا أركيسا لكن ما دقاقين ماشي ديني كما دقاقين صلاة ديني كما يبحن وعلي وحي أقل كألابو تالي ألابو ميوليني وحي يالي مركو ورسلو يلي بح إردي وكسو قليبا كن نقطة مارة تاني قدار بيكون نقطة دربي مركاسو يابي وصال نقضي حدنا وحوري هالكاد كسو قشي هالكاد كسو قشي معين الباب كو فرين هو أركا مرة اللي مركو الباب كسو قارنا وحو أركا الباب كو حرام دربي ومضحة كو دفتا قدار مركاسو يابي هذا وصل نقول دركشي كي ودبو قاطع دركسيوني مركاسو هل كيلو سلي وات هالكاد كسو قشي فرنا كبح مركو قارنا ماشي وحرانتا هيبا alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa leeyahay ilaa salaada ay ka baxaysay yidii uu sugay wuxuu yiri kolka salaada ka baxday buu ku yiri wixii aan ka qaato aniga ku dhigay albaabka halku iga xigay sheeg buu ka yiri 40 ka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qasadaas markaas ay ku tiri anigu albaabka ma xidhin albaabka xagga sare laga xidhaa beetan xagga sare ma doonaysaa in albaabka laga furo ha toobadkeen bay ku tiri بلنا قال إلهي نظن قنيس ودم بالدبات كل عين وتوجد عبافيس إلهي وبلغات ويقبل نبولي ما أنت الله قبل عبينا توبت كانوا هل مركل يا مركوس ده يريتري الباب جوا كاسة كبح الباب كيبو كبحي ويسجدوا وحي تري يا ربي أنا جواك قلفتي سوى سوجدي قلبي جيس هذه كوش شغال إله وقلبي جيس سوجدي بكتري هذه بكتسدي بكتوبت كانوا نبى مالين دوت قصة عجيبة إيش هيك لبك كونية تضبيط طبنكي ودنا هذا الاسم هذا G20 جي لما تنك ودنا أدونك أبور شد بدن مال قبلنا دو دي بالشرك ودك الجنة فلان بس كوي مدن دختر بدختر كو قوم بدنا عالم كنا ويكو عزومة دين شركي وحيد هذا الرجني والرجل أدونك أقول دقالها بدنا nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadana dhan ka maal badan wadana dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay buu qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxa ma hayno maxay yiraahdeen raaxa ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoon keena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday oo dhimanaysa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacallaa bay yiraahdeen oo dawooyin iyo isboor iyo waxbaan sameeynaa bay yiraahdeen haye iyo cunto fiican iyo لكن تنهر تاجن يعني هبيك كسر حل أنا هاي وموتك حلو كنا مكاني كرام هر مكاني كرام يا مكاني كرام لكن ده يسوق قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام صدق ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايماً مركز النبي عيسى كويد وحن ودايماً والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز نبي إلهي صدري إيه أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدة هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي مثلا واديك هذا نوجاد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بلد النبي أي أندر ذاك مركز الذهب كي قاتن وإلا السعودين وإلا اللقيين magaaladii markay u dhawaadeen bay yiraahdeen hadaan maalin gal wala naga dhici habeen ku beegno laakiin waa gaajoonayna way tashadeen waxay yiraahdeen laba dahabkaas si ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolku ka dhaqaaqay
labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga laba qiso cajiiba quraanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nebi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'awi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala sa'awi xataa aabba ma odhan baa la yidhi ilmo aabbihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegaya iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooya ku yeedhana hooye macaanay dheh hee hooye macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad how tirahdid keliya how ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii u iska diido wuxuu yidhi buurtaasaan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan hirarkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo birayo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahan waa labada hooye ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaayo warkiisa ha maqline hor addanahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona
hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga halaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsamayna ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaama gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyadii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen way la yaabeen waxay yidhahdeen war ininku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya nin odayaa yidhi oday dariskayga ah oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo gelin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaaceen waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taallo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saa u qarqarhaya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan kaa soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaara ha ziyaarada waan aqaanay u kaadiye buu yidhi qolkiibuu ku noqday lacag yar buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu moodaya qoladii tariiqadaha ee suufiyadu beriga hore reeraha waa ziyaaradii sheekhabele keena orange imika iska dhamaataan u malaynba ana xaggayga jabuuti imika iska dhamaatay xaggiina mooyaane imika ziyaarada waxaa isku badishay ilaahay dartii baa qofka loo ziyaaranayaa oo waxaa badishay ilaahay dartii baan kuu soo booqanno kuu soo ziyaaranay waxaa duyana kuuma sidno waxaa duyana kaama doonayne khayrka jamaacadda ka yar dhegayso aan wada dhegaysanaya markaasuu yaabay wuxuu war dad lacag diida markayna lacag ma qaadano weli intaan noolahay waa qof lacag diida waa ii kowe maxaa tihiin may annaku adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadanaa waqtiga 20 midhan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maanaaba arkay buu la yaab bay ku noqotay mugta khamrigiina halkan ay taallaa jamaacadina halkan iska fadhiisteen indhahay ka qabsadeen waxay yidhahdeen annaku jamaacad waxaan nahay martiya magaalada hiblaayaan ka imanay dadka muslimiintaan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweynna waan soo buuqanaynay dhallinyaradana masaajidkaan ugu yeedhaynay halkii hadalkaa markay yuu furfurmay wax lacagana ma qaadataan may ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bilmaali wanafsi bilmaali naftayadiiyo maalkayaan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisii aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedihiin weligay ma maqal buu yidhi weligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buu yidhi maxaad iga rabtaan adar ii sheeg lacag waad igu diideen oo wax kale sheegtay waxaa kaa rabnaa annagu 2 qof aan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacadda u tagto waad soo salaantid bas intaasaan kaa rabnaa ma intaa usuhaa waa niraaci darkii buu soo xidhay
dhaladii khamriga halkii buu kaga yimid quradii la socdo masaajidkii buu jamacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa la waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeyo samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyey ayay liin yar iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay la in yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yidhi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideeda ay ka noqonayaan markaa buu nebigu cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyaga ka midoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoonan lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqaddam calaa kulli shay dacwaddaa ka horraysa wax walba jamaacaddii waxay yidhahdeen war annagu ma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya salaadii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhegaystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay masjidkii keenaan haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socda masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dembigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay Usmaan bin Affaan Allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid Usmaan bin Affaan wuxuu arkay Usmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen maalin buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam masjidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaadii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nabigu markaa ducadii buu dhageystay waa duco cajiib ah duco boqolkii 90 waa ilaahay ammaantiisa yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaaliduhu aldunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadith walaa yakhsha addawaa'ir yaa man yaclamu mathaaqiila aljibaal ilaa aakhirkeyga markaa buu nebigu yidhi Abu Muusa al-Ashcari buu u yeedhay wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyo ii keen buu ka yidhi markaa baa loo yeedhay ninkii nebigaa ku doonaya namari marxaba markaa buu nebigu sal alla alay slam haniimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayey ayuu kiish lacaga intuu ka soo dhex qaaday buu nebigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiye ah oo kuus lacag loo dhiibay ka warrama saasuu u qallibay uu farxay markaa buu nebigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi markaasuu yidhi haa maxaad u malay inaan kuu siiyey dee tolnimaad ii siisay buu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi waa runta
riximkuna xaq way leeyihiin in wax la isku siiye laakiin lacagtan ujeedadan kuu siiye waxa weeyaan bixusni hanaa'ika cala allah sidaad haddeertoon ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yidhi taa darteed baana kuu siiyey buu yidhi sidaad ilaahay u baryaysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nebiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nebigu shaqadiisii oo socota uu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadna uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay la leeyihiin baa nebiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno annaka jamaaca bari annagoo khaarijina wadannada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslima oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilomitir waa buuqanay nin odayo daadiisa ku qiyaasay dhowr iyo 60 jir markaas uu jamaacada halkay ka timid xagga ayo dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib kharashka ayaa naga bixiya bil maali wan nafs oo fiisaha wadankan lama helo si aad ku hesheen ilaahay baa bixiya رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزك كاله ما دلك كاله ما حد دونه ساميمك ده جماعة دي مسكيت كاسي جوجان إذا نرى عليهم دونين تانو مسكيت حد ما تجاوب حد معلومة كلنا صلاة ده إذا إلهي بقولي لكن مر هذا بري ما جوكتان واحد ها وهني ما بقولي ذلك الصوماليين وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو بسينه Soomaaliya islaamnimada u socon ugu muuqatay Soomaafka Soomaaligu xiiseynaya hayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii ay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa iminka wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa uu ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga هذا الكثير بسيط يا جماعة وتري لكن نكى habeenkii cishaay barkuu tukaday gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanaya hada soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa إمام مالك رحمة الله عليه أيام مالين وحوار كين عند اللي يراه وشارب الخمر يعني وسكرامي مركا لأن مركو السكرامي يركي يرى سكرتي باك السينيسا الله 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 شيخ يقول يا أبي والسكرام اسم الجلالة عجيب إمام الديسي انتو صوق هذي أيو صوص عبيب الليلو بريركي خمري بو عفك كجبيي وعسري بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكن وكسر بحي ما تكمل سحددا لأن مرقاس وكمل سحي بالإساس وكمل سحي لأن مرقاس يقول شيخ واسكرا سنة يقتك واسكرا سنة يسكت كيدا مرقو كبيي بوسك يقتكي هبين كده وود عيب عليه
ilaahu qalbigiisa adaahayo soo hadeey imaam maalik raxmatullaahi calayh habeenkii markuu jiibsaday ayaa manaan baa lagu yidhi sidaad annaka daraadaya adigu afkiisii dhareerkii khamriga aad uga biisay ayaan annakuna adiga daraadda qalbigiisii khamriga uga biinay baa ilaahay ka yidhi khalaas salaadii maqrib salaadii fajar imaam maalik markuu salaadii tujiyey dadka darsigii buu bilaabay wuxuu ka dhex arkay yarkii yaraayo darsigii dhex fadhiya markaasuu ma isagiibaa mise maaha markaasuu u yeedhay markuu darsigii dhameeyo wuxuu yihi yarkii ma tihid haa waa anigii say wax u jiraan bal ii sheeg adigan masaajidkii ilaahay wuxuu yihi xaaladayda xalay toole kii kaaga warramay baa anigana soo aadayay buu ka yidhi xaaladayda kii xalay toole kaaga warramay adiga unba anigana isoo hadeeyey xataa fii siirati cumar waxaa ku taalla haniimadii ayuu maalin maalmaha ka mida cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go-an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooyay buu yidhi wuxuu ihi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan lai geystay buu yidhi ku dhaawacmay markaasuu lacagtii buu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanaya markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kalu haddana siiya markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhifta halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiya mar dambu cumar marka uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yihi cumar baa war ninkii meesha joogay mey waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaaha loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halka ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuri ma nin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buuri wax meesha yaallo dhanba bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra